بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا قبل كمدك waxyaabihii ka dhacay oo aad iyo aad runtii u adkaa waxaa ka mid ahaa dilkii wasiirkii warfaafinta Puntland waa ka warqabtaan Ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa dil runtii aad iyo aad u foolxun oo aad looga naxay buu ahaa dil xaq darrana uu ahaa oo aan sharci ahayn ayuu ahaa sababta keentay runtii lama oran karo aana qabiil iyo qabiilo colaytamay lama oran karo fidmooyinka iska jira oo nin iska dhalinyaro ah oo qorisita uu Soomaaliya oo dhan baabiyay ayay ka mid ahayd gudoomiyihii gobolka Mudug waa ka warqabtaan inta kolba dhulkaas ka warqabta shaqooyinkiisa ka mid ayuu wuxuu ku tagay tuulo u dhow magaalada waxaa dhacday markaa in nin dhalinyaro ah oo sidaas xabad uu iska tuuray oo ay ku dhacday nin dadka gobolka ka mid ah ma ahayn runtii arrin ku talagala ma ahayn arrin qabiil ku salaysanna ma ahayn arrin iska fowda bay ahayd ninkaasina si accident ayuu u dhintay markuu dhintayna sida dhaqanku yahay iyadoo arrinta lagu mashquulsan yahay ayaa waxaa yimid dilka wasiirka laftiisuna wuxuu ku yimid qaabkaasi accident-ga oo kale aad iyo aad waxaan ugu mahadinaynaa boqolkiiba boqol beesha aan walaalaha nahay oo ninkaas maaragtay uu ka dhintay sida wanaagsan oo aan marnaba aan lagu qiimeyn karin carabka bini aadamka oo ay arrintaa uga qayb qaateen in dhibaatadaas aan wada damino oo aynu ka wada shaqeyno ciddii geysatay dhibkaas ciddii dhibkaa geysatay iyo ciddii ka horreysayba in sharciga la wada keeno oo si xadaaradu ay ku jirto arrintaa wax looga qabto arrintaa marka aad iyo aad baan walaalayaal ugu ammaanaynaa boqolkiiba boqol waa dad aan isku dhaqan iyo taariikh ba nahay arrintaas aad iyo aad baan ugu jirnaa 6 bilood ugu dambeysay runtii shaqada ugu weyn oo aan qabanayna ayay ahayd haddeertaana meel aad u wanaagsan bay maraysaa ilaa lagu ballamay oo la isugu yimid in arrintaas si wanaagsan gacmaha looga buuxsado oo wax laga qabto haddaanu Soomaalinahay marka waxaan u baahanahay marka waa adduunka nimid inaan adduunkan nimid aynu si nabadgelyo ula noolaano aynu ku soo biirino xadaarad iyo ilbaxnimo innaguna aan xadaarad ilbaxnimo ka qaadano anu dalka Ingiriiska muddo badan deganaa magaalo la yiraahdo Manchester
oo dadka bedel gaabay inay yaqaanaan waxa ka dhacday qisaad cajiib ah gabar Soomaaliyeed oo aan 20 sano gaarin oo dadkii ku tagay qaxa ah ayaa waxay dhigaysay school college bay dhigaysay gabadhii qof waxay ahayd qiim ah aad iyo aad u wanaagsan akhlaaq fiican leh ahadi leh ballan leh ilaahay maarta ka abaalmariyo waalidkeedii cidii soo tababartayba macluumadeedii baa la yaabtay gabadhan akhlaaqdeeda maaragtay ballankeeda ahadigeeda macluumaadiisay gabadhii waxay tiri xagee ka baratay bay tiri waxan qof yar baa tahay xagee ballanka ilaaliso isluubtaada dhaqankaaga suluugaaga xagee waxan ka baratay waxay tiri diinta islaamka oo aan aaminsanahay ayaa inta ayna faraysay iyada ka bartay waxay tiri buug ma yeelkeen kartaa kamid buugin kitaabkii bay ugeys oo tarjuman macluumadeedii kitaabkii bay akhrisay maalinta dambe iyadoo ooynaysay waxay timid gabadhii waxay tiri waxay geysay masaajidkiina gabadhii masaajidka keentay nin Egyptian oo sheekh ayaa masaajidka madax ka halkaas ku muslimtay iyadoo ooynaysay gabadhii arrinta loo yaabay noqotay waxa la yiri waxa sida caadiga adduunka la yaqaana in ardaygu uu ku hanuuno cilmiga macalinkiisa laakiin macallin ku hanuunay akhlaaqda ardaygiisa adduunka ku yaryaanay marka waxaan doonaynaa adduunkan maanta aan nimid inaan akhlaaq wanaagsan iyo waxqabad wanaagsan iyo ballan wanaagsan iyo runta aan laazino aan kula noolaano runtii waxa weeye wax badan ayaan ku soo kordhin karnaa inaguna wax badan oo wanaagsan ayaan ka qaadan karnaa dalka la yiraahdo Indonesia waa taqaanaan oo maanta dalka muslimka ugu faraha badana waxa islaamka gaarsiiyay 13 nin oo ganacsata taariikh islaamka gaaro 13 nin oo ganacsata baa gaarsiiyay waxay ku gaarsiiyeen qori maahayn wuxuu ahaa mucaamilo wanaagsan maanta waa dalka adduunka ugu muslimka badan weey marka inaguna aan isu roonaano waan is ixtiraamno dadka aan la deganahay aan ixtiraamno aan la noolaano waxaan iskugu mahadinayaa si aad u sareysa waan maasantihiin jazaakum allah khayr.